بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kasta dunyada ka joogtaan daafaha caalamka waxaan idinku salaameynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada tv-gani soomaaliya meel kastaad joogtaan waxaan leenahay caawaysin wanaagsan ama habeen wanaagsan ama galab wanaagsan xilli kastoo idiin tahayba caawa barnaamijkeena gaarka waxaa idila socodsiinaya anigoo ah cabdisaaq axmed jaamac waxaan caawa kaga hadli doonaa amuuraha somaliland ee isku cakiran ee loogu yeedhay constitution crisis ama khilaafaad sharci oo ka dhex taagan xisbiyada siyaasadda ee jamhuuriyadda somaliland caawana bal waxaan doonaynaa bal inaan idin hoga tusaaleyno idiina tilmaano bal halka saanto ay ka quruntay iyo cidda khalad kale haddaba si shacabka somaliland uga ogaadaan bal meelaha wax ka khaldan yihiin ma aha sharciga oo midba mid ku xidhan yahay laakiin wadanaha shakhsiga oo iskhilaafsan baahida ugu weyn ee dadka maalinkaa siyaasadda inoo matalaya waxay tahay dantooda oo keliya ay arkaan waana sababta ay sharciga dalka waxba uga qaban waayeen qof kasta wuxuu keenaa maalintaa meesha uu joogo ciddii isaga u danaynaysa isagoo eegaya rabitaankiisa keliya waxaana u eg tahay game siyaasadeed oo markii qofkii xadhkahan xidhay uu ka baxo uu haddana waayo qaab uu ugu soo noqdo oo isaga hadhow caqabad ku noqota kadibna wuxuu noqdaa qof bannaanka un ka qayliya amuuraha sidana markay wadamada soo wajahaan aqoon-yahankooda loo saaraa waxaana la darsaa halka wax ka khaldan yihiin 30 sannadood ee somaliland jirtay waxaa la isticmaalayaa tools ama qalab aan ku habboonayn sidii loo sixi lahaa waxyaalaha maanta khaldan qof kastoo maalintaa joogaana dantiisa unbuu ka dhigaa dawaarka oo maalintaa haysto waana sababta wax badani u saxmilayihiin madaxweyne kastoo talada dalka yimaada wuxuu yidhaahdaa halkeebuu iga xigaa kursigii maalintuu gaadhana wuxuu eegaa un cidda ku ilaalinaysa inta horuu bannaanka joogana waxaa keliya u muuqda waxa weeye jahada uu ka xigo kursiga siyaasadda uu markaa doonaya kursi jacaylku soomaalidoo dhan ama wadamada afrikaanka khaasatan somaliland wuxuu ka noqday jacayl la wada leeyahay waa jacayl qofku markuu jeclaado reerkooduna uu la jeclaanayo waana taa sababta keentay in wixii ay shacabku u baahnaayeen waxba laga bedeli waayo waxna laga qaban waayo madaxweyne kastoo yimaada ma doonaya inuu bedelo wixii khaldanaa laakiin wuxuu eegayaa ciddii siyaasadda markaa kasoo horjeeday waxaanu xidhanayaa difaac isaga u gaara laakiin xadhkaha markuu isku xidhxidho berito markuu bannaanka uga baxo haddana xadhkihii uu xidhay laftigoodii ayaa qabanaya waana sababta xal loo waayey dadkuna u heli waayeen noloshii iyo ujeedooyinkii ay u samaysteen dowladnimadana waxaa ku adkaatay inay dadka u gudbiso ama gaadhsiiso wixii dowladu u qaban jirtay caafimaad waxbarasho deegaan biyo nabad wixii oo dhami waxay noqdeen in midba midka kale uu kasii darnaado sida xaaladda u taallo inkastoo somaliland ay haysato nabad alxamdulilah laakiin nabaddaasi ma tahay mid sii jiri doonta oo sii hagaagi doonta haddii 80% dhalinyarada somaliland ay yihiin dad bilaa shaqaa dawaarlayaasha siyaasadda dadkan ugu bixiyey ee doonaya shay iyaga uun leeg inay isku talaan muddo intee leeg bay somaliland u fikri doonaan oo ka saari doonaan xaaladahan 30 sannadood midba mid sii fuulayso maxaase looga ilaalinayaa dadkii xalka keeni lahaa waa la garanayaa waa la ogyahay laakiin ninna ma doonayo shaadh aanu leekayn inuu tasho nin kastoo talada dalka yimaada wuxuu u eegyahay uun nin doonaya inuu isagu isleekaysiiyo maalintuu bannaanka uga baxana duruufaha siyaasaddu waxay ku qasbaan inuu ku qanaco xaaladuna waxay u eg tahay iminka taladan la ruugin waa lagu rafaadaa waa anigoo ah cabdisaaq axmed jaamac oo idinkaga tegaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xilli kastoo idiin tahay baa idin wanaagto lagu abaarsado taranka iyo uumiga haddaan reerka laga tarin howlaha ku riiqmee
nafta lagu abaarsado daranka iyo uumiga haddaan reerka laga harin xoolaha ku riqme naftaydaa ku raacde warune adna hayga rooge naftaydaa ku raacde warune adna hayga rooge